maamulka cisbitaalka kalkaal ayaa suguutin u qabtay Dr. Cabdifataax Maxamed Cabdishakuur oo safar waxbarasho u baxay sidoo kalena soo dhaweeyay Dr. Axmed Cabdiraxmaan Sugulle sidoo kale waxa soo dhaweynta ka qayb ahaa Fuad Garaasalaam Quraan oo ka mid noqon doona shaqaale weynaha cisbitaalka kalkaal iyo Buuhoodle Mental Hospital waxa xafladda soo dhaweynta ka qayb galay mas'uuliyiinta sare ee hay'adda maxalliga ah ee BHPID Dr. Maxamed Shiine iyo agaasimaha cisbitaalka dhimirka Buuhoodle Guuleed Maxamed Nuux iyo madaxa maamulka iyo maaliyadda maxadka xirfadlayaasha caafimaadka Deeq Cabdi Xuseen iyo dhammaan shaqaalaha cisbitaalka kalkaal hospital asxaabtayda qaaliga ahayd aad ka jeclahay xaqiiqan ana jeclayn inaan ka fogaado laakiin sadano iyo duruufuhu ay keeneen in bal waqti ay noqoto in aanu kala maqnaano xaqiiqan waa shaqaalaha Manhal Health Care ama Kalkaal Hospital oo aadka u qiimaha badan iyo madaxdii sharafta lahayd oo agaasintay ama aasaastay cisbitaalka oo aad aan ugu ammaanayno asxaabtii Dr. Maxamed Shiine iyo Qudus iyo dhammaan oo xilli aysan Buuhoodle lahayn goob caafimaad oo la isku halayn karo ku dhiiraday inay sameeyaan waxa la yiraahdo caafimaad ka abuuraan xaqiiqan Buuhoodle waad ku dhalateen waad joogteen waad garanaysaan marxaladaha iyo nidaamyada ay soo martay waad garanaysaan caafimaadkeedu iyo qaabka uu ahaa xaqiiqan isbeddelka maanta muuqda ee magaalada ka muuqda waxaan aaminsanahay innagii oo aan faanayn in bulshadii aynu ku soo kordhinay wax anfacaya cilmi tayo leh xaqiiqan waxaan xusuustaa xilli ninka xabadda ku dhacdo waddada loola ordi jiro shangalle uu ku dhiman jiray hooyada uur kalena galkacyaa la geyn jiray ma aqaan wax lagala dooni jiray haddaa tahay mucbira xitaa loo geyn waayo iyana maxay waxay ku dhiman jirtay waxa la yidhaahdo dhexday ku dhiman jirtay maantana alxamdulilah heerkaan marayna waad aragtaan soo dhaweyn iyo sogootin anigu waxaan ku jiraa laftigayga dadka Mr. Cabdifataax oo in badan soo shaqaynayay qaybna ka soo ahaa hawlwadeenka cisbitaalka kaalin laxaad lana ka geystay daryeelka dadka reer Buuhoodle waxaan jeclahay inaan si loogu mahadceliyo waxaan kale u rajaynayaa in haddii Ilaahaydan ka dhigo hawsha uu hadda aadayo uu Ilaahay guul ugu dhameeyo caafimaadka gobolka laga hirgeliyay waxaan ku amaanayaa dadkii kaalinta hormuudnimo qaatay oo uu hadda nagala joogo Maxamed Shiine oo ah nin intii uu ku soo noqday wadanka waxyaabo badan halkan iyo meelo kale uu joogaba ka qabtay kaalintaas waa ku amaanan yahay idinkuna waa ku ammaanantihiin hawlgudashadiina anna waxaan rajaynayaa inaan insha Allah taala waqtiga soo socda adeega aad wadaan aan qayb ka noqon doono sheegay sugootinta Dr. Cabdifataax Maxamed Cabdishakuur iyo soo dhaweynta Dr. Axmed aad ayaan ugu faraxsanahay inaan maanta sii sugootino muddo hal sano iyo dheeraad dhowr bilood 7 bilood oo inala shaqaynayay Dr. Cabdifataax insha Allah waqti kooban buu inaga maqnaan doonaa insha Allah waxaan rajayn doonaa inuu nagu soo laaban doono inagoo insha Allah aan rajayn doono kollay saaxiibtinimadii mooyeen intamne shaqada insha Allah dhakhtar inoo bixiyo aynu haysano insha Allah inta kadib Dr. Cabdifataax muddadii uu shaqaynayay kollay ma calaamadin karno waxaynu ku naqaano laakiin haddaan soo koobo dhowr qodob aan ku xasuusano Dr. Cabdifataax marka koowaad wuxuu ahaa nin tala badan oo talada inta badan aniga ka ahaan inta cisbitaalka mas'uulka ah tala badan ii soo jeedin jiray haday ahaan lahayd mid deegaan iyo mid cisbitaalba sidoo kalena wuxuu ahaa nin
tala qaadasho badan oo waxa loo sheego qaata oo waa astaan uu lahaa oo wanaaga waxaa kaloo aan ku xasuusan karnaa Dr. Cabdifataax inuu ahaa nin bini'aantinimo ah oo dareenka bukaankiisa laga dareemayo waxaan sagoontinaynaa caawa baa la yidhi Dr. Cabdifataax Dr. Cabdifataax waxaan u malaynayaa sagoontin dheer inaynaan sagoontiyeynin laakiin sagoontin dhow oo cilmiga nagu soo kororsan doono insha Allah tacaala saan ilaahay ka rajaynayno Dr. Axmedna isagana inaan soo dhaweyn doono sidoo kale garaad faad garaad salaam buraale oo isaguna qayb ka noqon doona teamkeena baa isaguna mar labaad aan soo dhaweynaynaa haddii aan in yar ku laabto Dr. Cabdifataax Dr. Cabdifataax horay waa isu naqaanay dhalinyaro reer Buuhoodland isku ahayn waqtiga dugsiga sare markii uu yimi magaalada habeenkii ugu horeysay waxaan u malaynayaa markii isaga Qudus bay ahaayeen oo soo galay qofkii ugu horeeyay ee kulanna aniga isagaan ahay marka waan weydiiyay muxuu u socday Cabdifataax waxa lagu yiri dhakhtar weeye wuxuu socdaa kalkaal marka xogaa acceptability way yareedo waxaan lahaa sidee suurtagal ku tahay Cabdifataax oo shalay taqaanay halkan joogay inuu maanta inta soo xidhxeedo uu dhaho dhakhtar baan ahay medicine oo raba inuu GPO dhakhtar fadhiisto xogaa waan ka yara walaacsanaa dan markii dambe oo shaqada la bilaabay oo aanu si gaara u wada shaqaynay oo dhinacna cusbitaalka anigu mas'uulka aan ka ahay dhakhtarkiisa uu noqday dhinacna macaamiil aan la noqday oo dadka xanuunsanaya anigu aan u keenayay 100% baan shaqadiisii horta ku qancay run ahaantiina markii isbedelku dhacay maadaama aan mas'uuliyiinta ku jiro lahaa Dr. Warfaana waad ka wareegaysaan Dr. Cabdifataaxna waad ku wareegaysaan isbedelku wiilay raqlafsanaa anigu Warfaa dhakhtar fiican buu ahaa si fiican baad isu barateen si fiican baad isu fahanteen maxaa Cabdifataax ka soo bixi doona talo kadib waxaa ka soo baxay alxamdulillaah rabbil caalamiin wanaag iyo sharaf dhakhaatiirta iyo ka soo qaybgalayaasha dhammaanba waa salaamayaa bacda salaan kulley xafladeennu dacaa waxay daaran tahay labada dhakhtar Dr. Cabdifataax Maxamed Cabdishakuur iyo Dr. Axmed Dayib oo midna aynu soo dhaweynayno midna aynu sagootiyeyno aad bay farxad igu tahay inaan xafladan ka soo qayb galo quruxda badan ee loo agaasimay soo dhaweynta iyo waxa weeye sagootinta marka ugu horeysa aan ku horeeyo Dr. Axmed Dayib waxaan leenahay ku soo dhawow dhakhtarka iyo shaqaalahan quruxda badan ee tayeysan waxa weeye shaqadiisa sida wacan ugu filan ku soo dhawow ka soo dhaweynta hadaan intaa ku dhaafo Dr. Cabdifataax kulli tabaan leenahay markasta waana wax lagu ammaani karo annaga midkii lagu tagaya de waxaan horta meel la weydiinay Cabdifataax tegitaanka miyaan annaga qaybna laga siinay haddana dhigiisiiba maxay inoo yimiyo laga yaabo sidii guul sheegay maxay inuu kaba sii wanaagsanaado عليه وصحبه أجمعين أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka ugu horeysa waxa Ilaahay baa mahad iskale subhanahu wa ta'ala isuu kan kulankan aad ka quruxda badan runtii waqtiga iska yar hadalka ma badinayo hadii la haydmo runtii xafladan caawa waxa sida la sheegay waxay daaran tahay sagootin iyadoo la sii sagootinayo Dr. Cabdifataax Maxamed Cabdishakuur la soo dhaweynayo Dr. Axmed Cabdiraxmaan Sugulle runtii de waa laga sheekeeyay wanaagii Dr. Cabdifataax lahaa sifadiisii waa laga sheekeeyay ku dheeraan maayo runtii Dr. Cabdifataax wuxuu ahaa Dr. runtii naxariis badan kindful runtii oo waxyaalaha dhakhaatiirta sideedaba lagu yaqaanaa kindful oo naxariis wuxuu ahaa shakhsi dabci wanaagsan runtii waa salaamaya marka hore shaqaalaha kalkaal hospital maamulka dhinaca isbitaalka dhimirka Buuhoodle macadka xirfadlayaasha caafimaadka ee Buuhoodle dhakhaatiirta iyo shaqaalaha kale aad baan idin salaamaya marka xiga runtii caawa farxad bay tahay inaan kala qayb galo kalkaal hospital iyo isbitaalka dhimirkaba soo dhaweynta Dr. Axmed Cabdiraxmaan Sugulle iyo sagootinta Dr. Cabdifataax Maxamed Cabdishakuur horta waxaan oran lahaa
labada dhakhtarba ninna meel buu soo gaadhsiiyey ninna waxaan rabnaa halka ka sii wado waa laga yaabaa inay kala fursad badan yihiin waa laga yaabaa inay kala maaragtay waqti kale ku soo kala aadeen laakiin insha Allah sirta guushuna waxa weeye waa kaadirka qofka kaadirka ah waxaa kaloo isna aan rabaa inaan ku soo dhaweeyo meesha Fuaad Garaad Saleemaan Buraale oo isna madaxa maaliyadda ee labada cisbitaalba noqon doona ama maamulka maaliyadda isna aad baan ugu soo dhaweynayaa shaqada inay soo badanayso fursadda ah in dhakhaatiirtii deegaanka ay soo noqonayso barbaa jirteen nursingka iyo midwife-kaba gobollo laga keenay aan buuhood lahayn laakiin haddana waxay moodaan dhakhaatiirtiiba gudaha laga helayo waa chance aad fiican waxaan rajayn doonaa in dhakhaatiirta iyo nurska sida hadda u soo baxayaan iyo midwife-kuna ay noo soo baxaan iyo shaybaadhistayaashu Ibrahim Abdulqaadir Jabaan